أركان الإيمان وحاكجر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الرسول وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. القضاء والقدر، قضاء والقدر وحوياه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومدونا هذا يسوي ماتين وحكسيان كما سينكران إلهي وحقوق رموغي. وإن اجتمعوا على أن يضروك هذا أروران إلي يا ليانا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وحو إلهي حقوق ري مرة إساس أي تاي النبي صلى الله عليه وسلم نفد من يسمجرته إلى أي كلام ما يستوحوا إلهي وقري. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مرة إساس تاي ومدى أن الصوماليات وحاها لاقي ويسكب بعضي كرسي يحكمك أنا قاضنا يما قاضنا يسد يوان قاضنا بريجو هراء ومدى وحال سوودة كعية لما أنت كرسي جاس كلا قاضي شديسة قفك كرسي الربنا هادو بناك سوي استوى هذا قبيل كي عاوي ضدك كلا عاوي دقيسته كرسي جاس عن رباه ورنا قال لي حيدا يعني ربيتان كان محنا يجي لأنك ما ده يا مركب كرسي جاس عن رباه حقيقة إنه محيطه هو كرسي جاس عن رباه لكن محول إيه خير كنا قبيل كنا يا وحلود دي الدنيا صوب حي هيا بريجو هنا ضدك ور مكلهينين فيسبوك نمجرين ور كان لما كله يجرين دكتور وحلا سوي شيء يجري يميل مقدي ميل هوس خير كاس وين نعبين خير كاس واساس خير كاس واساس انت اللي سوا فوفون ببوك لديه يجري لكن هذا الحمد لله قفل بوحو وياه هي حقيقة ديس هي حالات سديتاي هي وحا ودونايو كل ولا ودا يقانان هل أرنا مركب مهمة إن لو أجاده ملكي يا بحية يا إسكاله هرتو ملكي يا إسكاله الله إسكاله يا بحية ملكي الله أبحية هدوس إلهي كو قرين مهليسد هدو إلهي كو قرينا عد كو ديني كرتمجرته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء آيادان culays badan ay dadka dajinaysaa oo dadka qaarkii mulki inay rabaan xukun inay rabaan ayay rabaan inay xukun ku helaan hal arna ku darsadeen rabitaankaaga adiga lama dhihin xukunku waad ku helaysaa oo lama dhihin tuutil mulka man yashaa mulkigaad ilaahu siisaa ruuxii doona lama dhihin haddii la dhiila ruuxii doona waa la siinayaa kursigiina hal uu yahay inta masaajid ku jirto dhan waxa laga yaabaa inay dhiilaayeen anna waa rabaa marka rabitaanka dadka lagu ma qaybiyo ee doonista ilaahay baa lagu helaa tuutil mulka ilaahay mulki waxaad siisaa man tashaa qofka doontaad siisaa wa tanzu'ul mulka mulkigan waad ka siibtaa man tashaa qofka doontaad ka siibtaa qofku ilaahay mulki ka siibayo cid ku hayn karta ma jirto qofku ilaahay ka siibina cid ka qaadi karta ma jirto أذكرتنا كجرتا الصباح يا قلب والله آخرها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وهو البو إله أذاكرتد سامر كانوا يقولون نكذب يعني نجاخل ضمن تاريخ ذي هراء الصومالي إلى هذا ضد وحليه كري لا يه ورجال هذا استعمار كأهان جرتي وحي ودن كان أيسوق جارسين وذوقتهين oo zaman الاستعمار hadaad akhrisid umada Soomaal dhibkii la gaarsiiyay kadib markay isticmaalka ay baxeen Soomaalidu waxay ku maamaan waxay dhan yaxaas haduu afka kula gafasayntu kugu dhuftaa markay baxayeen iska mayna bixin fikirkoodii oo sidiisii ah ayay inooga tageen markaas dawladnimadka iyo waxa loo fahmay cidii gaaladaasi ay raali ka tahay بعد دولة نقطة ورسي أسماءها قنوت كم حنا آخرنا اللهم هدنا في من هديت نوازي شيء صلاة الصباح يمك آخرينه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت إلهي قفك هذا قرم على سيسنا مد اللوبه قفك هذا الله نقطنا معزوبه حنا سويدين أنا مركز قال هذا إلهي معول بيليين من صاحب إليين
col ayay leeyihiin maxay la way rumayn waayeen nicmadiisay ku kufriyeen arsaaqdiisay cunaan haddana way caynayaan way beeninayaan saasa ilaahay wuxuu inay yaa ayuha alladina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa kuwa mu'miniinta ahow kuwa aniga cadowga ii ah fa ina allaha caduwun lilkaafiriin so qur'aan ma ah dadka qaara quraanka qaarkii markii la akhrinayo kisto waxay dhahayaan gaalada amayna maqashaa weligood bahana maqleen fa ina allaha caduwun lilkaafiriin sadaqa allahu alcadiim meel laguma gaaro laba safaa la kala noqday saf mu'miniina la dhahaa mu'min haddaad tahayna arkaantii iimaanka iyo islaamkii iyo diintii waa la yaqaanaa waddadeeda kuwa way diidan yihiin oo waxay leeyihiin maya maba qarinayaan waxay leeyihiin maadaama reer galbeedku ay caalamka islaamka awood ku leeyihiin oo ayagu ay xukumaanaysay dareeyaan waxay dhahayaan lan nasmaxa marna ma yeelayno bitaxkiimi shariica alislaamiya shariicada islaamiya lagu dhaqmo marna ka yeeli mayno oo maxaa ka gal maxay rabaan shareecada annagaa rabna oo rumaysan ayagu hadday diideen inay rumayn waayeen inay sidoo kale inaga dhigaan inoo diidaan xaq uma leh waa gardarro waalkaafiruuna hum addaalimuun way gardaran yihin maxaa yeelay ayaguna waxay dhahayaan bulshadu wixii ay rabto ha loo oggolaado bulshooyinka muslimka ah markii la soo gaaro oo bulshada muslimka ah waxay rabto la yidhaahdo waxay leeyihin ma taa rabtaan ma ahee taa annaga rabnaad yeelaysiin halkaas markay noqotay mu'miniinta ilaahay wuu la hadlay wuxuu ku yidhi laa yattakhid almu'minuuna siyaaqa qur-aanka cajibsanidiisa laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin asluubtaas waxaa leedaha khabari oo sidii war laguu sheegaayo oo kale ayaa lagaaga dhigay laakiin waxaa loola jeedaa nahyaa la yidhaahdaa oo aayad markas waxaa leedahay laa yattakhidi kama dhigtaan waa khabari waay waraa laguu sheegaayaa laa yattakhidi ka dhigan maayaan almu'miniina mu'miniintu ka dhigan maayaan alkaafiriina gaalada awliyaa'a sokeeye ka dhigan maayaan min duuni almu'miniina mu'miniinta sokodooda kama dhiganayaan sokeeye bimacnaa muxuu yahay marka nahyi ka dhig yayna ka yeelani waayo marka kamaba yeelanayaana si laisku ogaa saasayba ahayde laakiin haddii dadka qaarkii xoogaa daciifu ku dhacay oo inay ka yeeshaan ay rabaan yayna ka yeelanin waman yafcal daalika qofkii sidaas sameeyo oo ka yeesha falaysa min allaahi fii shay ilaahay agtiisa wax u yaalla male marka laban bay mid tahay inaan ilaahay oggolaanno oo ilaahay uu inoo gargaaro iyo inaan gaalo aaminno oo ilaahay inoo gargaari waayo haddaan ilaahay u gargaarno in tansuru llaaha yansurkum hadduu ilaahay inoo gargaarana in yansurkum allaahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wacalى اllaahi falyatawakal اlmu'minuun marka waddadu way kala caddahay marka aayaddu way sii socotaa markaasa waxa laga yahay dadka qaarkiis ayagoo wixii ku dhex jira oo gaaladii jecel oo rajo ka sugaaya inay dhahaan ma isaa uma wadna ee saanaan u jeednay waxa inay meermeeriyaan ilaahay wuxuu yidhi qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu اllaahu waxa qalbigiina ku jira ama muujiya ama qarsada yaclamhu اllaahu wayaclamu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi wاllaahu calىa kuli shayin qadiir wax ilaahay ka qarsan male in allaha laa yakfى calayhi shayء fi اlardi walaa fi الsamaa qofkii marka diinta ku toosnaan waaya maanta waa adduunyo fakayfa idaa jamacnaahum liyowmin laa rayba fiihi wawufiyat kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun xaalkoodu sidee buu noqon doonaa maalinta dadkao dhan laisu keeni doono ina alawaliina waalaakhiriina lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum marka inaan diinteenna aaminno inaan is-aaminno iimaanka aan sheegayno laa ilaaha ila allah macnaheedu wuxuu yahay ruux kasta oo yidhaahda laa ilaaha ila allah waa walaalka waxaana la rabaa inay kaa celiso laa ilaaha ila allah wixii ay diidayso oo hadda markaan ka hadlaynay markii shacaa'irta la sameeyo tawxiidka xataa haddii aad ku dhawaaqdo oo laakiin wixii ay kaa celinaysa aadan ka joogaynin nabig sal ly slm wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah bixaqihaa dakhala aljanna qofkii laa ilaaha ila allahu yidhahda xaqeedana ku yidhaahda jannaduu gelaaya qiila waxaa la yidhi wamaa xaquhaa laa ilaaha illa allahu xaqeeda muxuu yahay markaasu wuxuu yidhi an taxjizahu can ilmaxaarim inay laa ilaha illa allah qofka ka celiso wixii xaaraan ah
innaga waxaan gaarnay marxalad in kastoo hadda inaan ka gudubnaan rajayno qof intii la qabto qabiil in loo dilo la rabo la yidhaahdo waa lagu dilayaay ashahaado oo markuu ashahaato laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah xabad lagu dhuftoo la dilo qofkan saa yeelaaya laa ilaaha ila allahu macno uguma fadhiso ogaada maalinta qiyaamana waxaa la yidhaha laa ilaaha ila allah wax ka culays badanna ma jirto nabigu wuxuu sal lla alay slam haddii laa ilaaha ila allahu kafad la saaro dhinaca kalena wixii kaloo dhan la saaro samaawaadkii iyo arladii iyo kulli la saaro laa ilaaha ila allahu dhinaceedaa culays badan wixii kaloo dhan fudayday noqonaayaan marka waxaa la rabaa inay kula weynaato kelimadan laa ilaaha ila allah waa kelimo weyn ilahay agtiisaa laga jecel yahay intii dhahaysa marka laa ilaaha ila allah walaalaatiin inama almu'minuuna ikhwatun marka maxaa keenaya innagoo soomaali ah oo qaraabe ah oo ehel ah oo meel aan kala jirin oo laa ilaaha illa allah isla dhahayna oo haddana isla sooman oo qur'aanka markii taraawiixda la tukanaayo hadda isku qur'aana la akhrinayaa qur'aan kala duwan ma ah xaafadaha in la dhegeyso maalmahan ramadaanka maasha allah magaalada oo dhan dhalinyaradu way shidan tahay dhahan qur'aan ay ka shidan tahay meel walba taraawiixa laga tukanayaa alxamdu lilah waa madiina oo yacni shacaarkii islaamka oo xifdiga qur'aanka macallimiinta jazaahum allahu khayr ardayda ay soo saarayaan say u tujinayaan yani waa wax aad loogu farxo taas waan fiicannahay oo waan aragnaye laakiin jaanibkii kale oo inay ina celiso ah laa ilaha illahu inay kala celiso soonku inaan isla soomannahay hadda waa kuwaan isla soomannahay magaalo soomaaliyed oo laga soomanayn male maxaan u soomannahay may qaarkood iska afuraan dhe waan iska afurayna ma dhahayaan way sooman yihiin maxaa ilaahay baa ina faray ilaahaygaas ina faray daraaddiis aan u walaalowno haddii kale biyaan iska dhaafay cuntaan iska dhaafay dadkiina oo isku diraayaa marka yaan la dembaabin bil ramadaana lagu jiraa ha la is ilaaliyo qofkii wax kaa qaba xataa inaad u sabirtaan roon maxaa yeele bishan aan ku jirno shahru sabri yaa la yidhahdaa sideedaba wa huwa shahru sabri waa bishii sabirka sabir adiga haddaad sabirto labada qof kan loo sabray iyo kan sabrayaa faa'iido qaba waaba la arkayba taariikhda akhriya idinka qofkii la keri waayo war dadka iska da war dadka ha dulminin war dhibaatada jooji oo la keri waayo oo u orda marka dambe meel xun uu ku dambeeya inta dhibaato dhacaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inaga xifdiyo dad badanoo waxaa jira soomaali dagaalkaas socdo oo dhan mar walba ku celcelinaya war soomaaliya walaalaana war dagaal meel laguma gaaro war cid ku guulaysatay ma jirto war inaga daaya hadda alxamdu lilah dadkeennu way qaboobeen hadda wax yar magaalooyin kale caadiya iska noqdeene caasimadda ayay waxoogaa yar haddana waxaa lagu fiican yahayba berigii hore dagaalka ku xanaaqaa waa ilaan xabad kama soo dhexbaxaysa moogta wixii dhulka lagu samayn lahaa facebookaa lagu dhammaystay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka facebookiina haddaad doontaan isku dagaale ah laakiin bannaanka ha noo keenina kaasna inaad iska daysaana fiican isaga naftiisa maxaa yeelay in fidno la huriyo oo dad la isku diro oo hadallo xunxun lagu hadlo oo qabiil la kiciyo oo yani hadda waxaa waye qabaa'il soomaaliyeed oo isdagaalsan ma jiraan waxaa isdagaalsan niman siyaasiyiin ah oo banooniga habkii loo dheeli lahaa baaska isla waayey bes wax kale maaha waxay u baahan yihin oo keliya baaska inay isla helaan maxaa yeelay kubadday ciyaaraayeen habkii loo ciyaari lahaa la isku qabtay bes wax kale ma ah habkii markii la isla fahmi waayey way kala tageen qof wal meeshu iska aaday waa mahadsan yihin ha iska kala tageen way iska soo qaboobi doonaan way iska dhammaan doontaa af lay yeelan doontaa laakiin intii halkaa laga gaaraayo ciyaarta intaan la ciyaarin waxaa ka horaysa dhalinyaro yaqaanaan waxa la yihahda aalamiinta la yihahdaa iyo iskulays qaara iskulays ku dhammaanahay marka iskulayska ha kusii dhammaanina xogaaga iskulayskee jira ha ku sii dhimanina waxaa imaan doonta ciyaar caadi ah oo la ciyaari doono ciyaartaas la ciyaari doono adduunyadana wada ciyaar waxa la iska dhahay maaha iclamuu annama alxayaatu dunyaa lacibun walahu adduunyadana waa intaas waa lacibun walahu ciyaartaas marka qofna si fiican u ciyaarayaa qofna si xun u ciyaarayaa marka intii si rasmi laga gaaraayo bannaanka ha ku sii dhammaanina ha isnicina dhalinyarada yaan la isku dirin waa dad walaalo ah yani wixii la soo maray iyo taariikhii la soo maray ka sheekaynteeda macno ma keenayso maxaa yeelay ma soo noqonayso wixii tegey ma soo noqonayaan
wixii dhacayna recording wax leedahay jira way duuban yihiin waa tasjiil recording meel ay ku duuban yihiin xagee ku duuban yihiin nabi muuse markii fircoon loo soo diray yaa wuxuu ku yidhi maad raacdido rumaysido saas wuxuu rabaa marka inuu mowqifka uga boodo wuxuu ku yidhi ani iska dhaafe dadkii hore iga waran famaa baalu quruuni اluulaa dadkii hore ka waran nabi muuse dadkii hore waxay ahaayeen iyo xaaladooda umuna gelin maxaa yeelay hawl hadda u taalla ma ah dadkii hore way dhinteen way baxeen waxa laga sheekaynaayo ee in nolol loo sameeyo waaqic loo hagaajiyo loo baahanya waa inta nool dadka qaarkii marka in waxa noloshan dadkan loo hagaajiyo waxay ka fadilayaan gadaal waxaan waxba laga qaban karin dadkii hore ka waran famaa baalu quruuni اluulaa nabi muuse wuxuu ku yidhi cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa maxay igu wareerin adiga cilmuhaa cinda rabbi dadkii inaga horreeyey waxay soo sameeyeen cilmuhaa cinda rabbi fii kitaabin waxay sameeyeen o dhan waa fii kitaabin waa recording ugu duuban yahay laa yadilu rabbii walaa yansa ilahay waxna ma iloobaayo wax ka qarsoomayna ma jirto wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin yaa bunayi inaha in takun midqaala xabatin min khardal fatakun fii sakratin aw fi الsamaawaati aw fi اlardi ya'ti biha allah marka faallaahu xaakim asagaa inooga filan qof walba wuxuu kasbaday asagaa kula xisaabtamaaya innaga waxaa laynaga rabaa wanaag iyo khayr wixii aan ka shaqayn karra inaan ka shaqayno ummaddan soomaaliyeed nabad iyo dagaal markii la yidhaahdo nabaddaa u fiican maxaa yeelay dagaal way soo aragtay mirihiisana waa la arkay alxamdulilah rabbi hadda waa la fahmay soomaalida hore waxay u yidhahdeen nin dab haaya day lama dhaho maxay asgaab iska daynaayeen war dhuxusha dabka iska dhigniyo war haddaad dhahdo war ama iska dhigaay maku dhaha ma isku soo gaaraysaan horta inaad dhuxusha dabka iska dhig dhahdo ma isku soo gaaraysaan asagaaba iska tuuraayab ummaddan marka soomaaliyeed dhuxul gacmaha la isu saar saaro uma baahno waxay u baahan tahay ubax gacanta la isu saar saaro wanaag gacanta la isugu saaro la heshiisiiyo magaalo kasta oo soomaaliyeedna khayr allah siiyo odayaasha joogaan dagaal iyo haddii laga abaabulo markiiba way ku baxaan way joojiyaan waa fursad ay nafteeda aan soo gaarnay marka magaaladeenna muqdisho waa caasimaddii soomaaliyeed waa meesha ugu dad badan soomaaliya waa meesha dhibaatada hadda ugu dambaysa siriiriixa ugu dambeeya finalkii ayaa ka socda ciyaarihii gobollada waa la soo dhameeyey caasimadda bes in la dheelaa la rabay ciyaartu way baaqatay marka waa la dheeli waayey bes halkaasay inoo joogtaa marka in ciyaartii xoogaa stoob la siiyey lasoo kala nasanaayo cid walba soo tashanayso marka qofkii wanaag uga shaqayn kara uga shaqeeyo qofkii kalena dab huraaya benziin laguma sii daaro waa la qaboojiyaa waa la qaboojiyaa waa la qaboojiyaa kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaha allah marka soo dagaal la abaabulo ilaahay baa damiya ilaahay haynaga damiyo colaad waxay noo tari maysa ilaahay naga damiyo nabad allah hayna siiyo soonkan aan ka faa'iidaysano waa fursado salaaddii aan ku tukanno way ka fadli badan tahay salaadihii kale sadiiqadii aan bixinno way ka fadli badan tahay fahamka guudna aan isla fahamno oo ah soonka waan fahmnay cuntada in la iska daaye ha la iska daayo isdilka iyo isnacaybka ha la iska daayo biyaha iyo cuntada saacado yar ayay xaaraan yihiin oo maalintii ah oo maqribka hadhow haddii la aadaamo biyaha hadda aynan cabi karaynin waa cabaynaa islaamnimadu waa la yaab fiir waxay la yaab ku leedahay ilaahay awooddiisa muslimiintu say u fiican yihiin biyaha waxaa lagu dhahayaa saacaddaas ma cabi kartid oo hadda waan soomannahay in qasab qori intii lagu soo qaato sanka lagaa geliyo ma ogi oo biyo cab lagu dhaha ma ogi adoo ikhtiyaarkaaga caadi ah biyahan qabo waayo hoo haddii lagu dhaho hadda haddii biyaha laydiin qaybiyo hal ruux oo qaadana idinkuma jiro war biyahan caba ma rabno aad taagantiin maqribkii hala qaybiyab isi oo maxaa hadda loo diiday maqribkiina saasay u noqotay haddana ilaahay baa wuxuu ina dhahay waqtigaad aad joogtaan biyaha cabina maqribkiina ilaahay wuxuu ina dhahay waa cabi kartaan ars fiicana amarka saan u qaadanayno diinta islaamka islaamnimada macnaheedu waa saas samee lagu dhaha waa samaynaya ka joogaa lagu dhaha maalinta soonka ugu dambaysa 30 haddii ku dhammaado ama 29 maalinka ugu dambaysa duhurkan oo kale in cunto la cuno waa xaaraan waa lagu dambaabaa maalinta ku xigtay ciidda ah duhurkii haddaad cunto cuni weydo oo aad waan sooma inaad cuntada cuni weyday aad ku dambaabe fiir waa laba maalin isku xigta oo midna cunto cunidiyaa lagu dambaabaa midna cunto in la cuni waayaa lagu dambaabaa
marka saasa islaam waman yuslim wajhahu ila allah ilaahay baan wajigeen u sii jeedinay waay fariista waan fariisan istaaga waan istaagayna marka af xirashada ogolaanay afkii xiranay bal jaanibki kale oo aadka aan ugu liidano oo aha amaanada oo la guto runta oo la sheego dariska oo la wanaajiyo yaani ihsaan la isu sameeyo dambiga la iska daayo dhiiga aan la daadin xaq darro jaanibkaas oo muhiim ah oo ayaga waliga isaga mugta xalaal ma noqonaya biyo hada xalaal bay noqon soo ma bacda maghribka laakiin qof muslim in la dilo maalintii xaraan yahay habeenkii xalaal yahay ma aragteen ma jirto بالهبل وحاران ياه بالهبل ما عرفتين مجرتوا ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم إلهي أتكلكوا لنتان وحاران قف مسلم ديجيس إلا قالوا مالكيس إلا قاتو عرضكيس شرفتيسا أنت عشان وضع حاران مركا صونكي أقولنا معاملاتك هجاجين تودنا عن أقولنا ساسا إسلام وناجي هذا وياي رالي هذا كل رأيي وحنوط رمضان ما دام يتقضي إذن آذني baan khudbadii inaan wax ku sii dardarsano marka daan ku dheen raali ahaada waxaan rajaynayaa insha Allah taala inta ramadaanku uu socdo inay inoo noqon doonto kalimooyin tawjiiha inay inoo socon doonaan ummadana loo duceeyo qofka sooman ducadiisa Ilaahay wuu aqbalaa wadanka Ilaahay inoo dejiyo qulubta ummadda inuu isu soo celiyo xumaatada iyo wax inuu dhex Ilaahay inuu naga saaro isjacaylka dhexdeena muuminiinta Ilaahay inuu soo dejiyo daba orodka gaalada iyo gaalaan rajo kaleenahay iyo waxba intaan iska hilmaano inagu is aamino wixii aan isku qabano diinteena iyo culimadeena iyo odayaasheena iyo waxgaradkeena oo la soo noqono dadka akhyaarta ah warkooda la maqlaayana inay dadka kala gaaraan oo sida hadaba dhacaysa markay waxa dhiila ay soo yeedhaba loola kala hadlay dadka waa arrin fiican xadiidkii aan ku soo gabeeyay nabigu sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum aydin sheega bi afdala wax ka fadli badan بأفضل من الصلاة والزكاة والصيام يعني أنت عبادات كودن مركز سيدنا رسولك نوشك بس إصلاح ذات البين دتك اللي يشيسيو مركز سوماليا شقة ما أنت لقى قبته وقفل لبدن دتك اللي يشيسيو قفك وحكفل لبدن هايا هكانوا محايا لي فإن فساد ذات البين هي الحالقة إسخلاف سنة أنت دتك إسخلاف سنة دين تودنا حير ميس دين تودنا بابايس لا أقول أنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين لكن الدين له شيء أو نبض له له دينتي أكرو كعيسى نفتي أيا إلى شمايسة مالك بقى إلى شماية عرضك بقى إلى شماية عقلك بقى إلى شماية نولا شؤون يا وده هجاجيسة مركها هو الوين أيا أنت وقبها أنت علماء يدتك أهل خير قفل بقى صومالية الدور يولاي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قفل هذا سكوت دايو دورك أولاي إنه قلتوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم نجنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين صلى الله على سيدنا محمد